Soomaali waxay tiraa waaxid iyo wadariya waalan ayadoo ogtihiin baaqi laga soo saaray igad ayadoo ogtihiin baash caalamka 15 December warmulteedka soo saartay ayadoo ogtihiin inuu cawada aan hadlayna madaxweynihii Puntland oo kaalkacyo u yimid inuu la shiro madaxweynaha Galmudug ka bacdina ay ka shaqeeyaan in la isugu yimaado waan lagu xalinayo khilaafka taagan ayuu madaxweynaha cawada wuxuu soo saaray jadwalkii doorashada macnaheedu waxa waaye qof aan u aabiyeelayo iyo cid aan dhageysanayo ma jirto jadwalka doorashada waxa ku qoran waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay doorashada xilligaas qabtaan saas yeelaan wiilal dhalinyaro hoteelka ku shirsan soo saaray waxa saaxiibka Musa Bixilo ku raacsanahay yaa waaye madaxweynayaasha goboleedyada leeyahay doorashada qabta Saciid Cabdullaahi Daniya Maxamed Madooba waa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo doorashada walaalaha Soomaaliland oo rabo annagoo taagan in Muqdisho lagu dhaco farmaajo marka isku soo duuduubo wuxuu ku tashanayaa waa intaas dhimale wuxuu yiri Puntland iyo Jubbaland shaqo kumadii waa ka soconaa hadda Soomaali waa 4.5 doorashada iyo ka qayb gali haddana Puntland iyo Jubbaland xayir doorashada hanoo daayo مثلا انت انك انك شريف حسن اكو ترتبينه مدحوين قرقور هي مدحوين لفت قرين هي مدحوين علي قول له waxaa ka rabnaa doorasho dalka laga wada qabto oo loo sameeyay inay qayb ka noqdaan hadduu madaxweyne farmaajo diido annaga ku tartamayna shariif xasan han dhaafan taasaan ka leeyahay madaxweynaha wuxuuna leeyahay horta waxaa ogaatiin madaxweyne farmaajo soo u yimid dadkii ugu badnaaya magaaladan ka dhintay 1000 qofooda isku maalin meel ku dhimatay maalin kalena 200 isku meel ku dhimatay oo ogtiin oo ex control iyo qarax ay ku dhinteen soo bixi